u jecel yahay rag iyo dumarba taageeradeeda waa loo siman yahay laakiin ciyaarta kubadda cagta looma sinna Golden Girls waa naadiga hablaha ee Muqdisho ciyaaryahanadani waxay ku jiraan gabdhaha tirada yar ee ciyaara kubadda cagta iyadoo ay caaqibada amni iyo kuwa dhaqanba hor yaalliin anaga rajo badan iyo habi badan waa leenahay gabdhihiina way rabaan inay kubadda cagta mar uun karmeeyaan sababtoo waxaan nahay dad kubadda cagta in badan taageero sidii aan nahay gabdheena Soomaaliya laakiin se duruufaha iska jiro gabdhihii qarash badan ma haystaan darees ma haystaan kabiin ma haystaan caafimaadkooda ma laga taxadiray saasay tahay waxa wali waxay rabaan inay macnaha wali kubadda cagta ciyaaraan xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa sheemo u magacaabay gudoomiyaha guddiga haweenka kubadda cagta 2018 waxay hadda xiriirka ku eedeynaysaa inay diidan yihiin horumarinta haweenka kubadda ciyaara baahida aan ka leenahay waxay ahayd garoomada inaan helno garoomo 100 jeer kun jeerna waa warsaday wayna noo diideen inayna siiyaan maadaama gabdhanahay waxay dhan waan qabsanaynaa ma siin karno tii labaad aan dhahwaaya dib ma lahan garoomo ijaarinayna tan labaad oo baahideena ahayd waxay ahayd in qalab aan helno banoonigii wixii وأنا حسابيا تمام بنوني نسي قلب حساب سنة وأنت سون دمين ما دام قبل يصير بدناين قلب كإناف مقاهن أيضا وحيقول دهن باجت مجرى ما دام وحن عصبتها باجت في حتى الكوا لو دردونا أنا كانوا واسك آمني لكن قدوميها حرير ككبدا عقتا يا نوش يجيني سنشرين نادي أما هل قبل أودي وانقشان حريرك قبلها سومالي هذا مجرته هل كوحتا أو قبلها ورجستر الوها أما بريريسا سومالي هرت ما قبته سومالي ما قبته قبلهم معلمين ما قبته قبل قرصورة ما قبته أو كبدا عكتها لكن وحيد قبتها قبل عيارو باسكت بولا قبل عيارو أتليتيكا ده قبل عيارو هامبولكا سومالي بيلاده xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waxa uu FIFA ka helaa caawimo dhaqaale oo loogu talagalay kubadda cagta ee haweenka intii u dhaxaysay sanadkii 2013 ilaa 2016 balse gudoomiyaha ayaa noo sheegay inaysan isticmaalin lacagtii loogu talagalay haweenka caqabada jira awgeed waxyaabaha cadeen waxa kamid ah wadankeen inuu 100% muslim yahay oo kaljar ahaan ay kubadda cagta gabadhiina dheelaan ay aad uga soo horjeedaan waxa cadeen dhaqanka Soomaalida